xisbiyada mucaaradka Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ay ku sheegayaan inay aad uga walacsan yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ee dalka Soomaaliya ku sugan. qoraalkaas oo ku socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana lala socodsiiyay dowladda federaalka, Midowga Afrika, Midowga Yurub, UNSOM, Golaha Ammaanka, dowladaha Mareykanka iyo UK iyo dhinacyo kale ayaa xisbiyada mucaaradka ay ku sheegeen inay u tixgelinayaan ciidamo kasta oo ku jira wadanka oo aan ahayn kuwa AMISOM inay yihiin kuwa dalka haysta. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu dhaliilay ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Francisco Madera. qoraalka ayaa lagu sheegay in arrimahan oo dhan ujeedka kama dambaysta ah ee laga leeyahay uu yahay in lagu farageliyo doorashada federaalka ee sanadkan dhacaysa. xadgudubyada la iska intiray ay ciidamada Itoobiya ku hayaan madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya waxay qayb ahaan mas'uul ka ah guuldarada wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya kaas oo laga rabay inuu xaqiijiyo sumcadda AMISOM ayaa lagu yiri qoraalkan. xisbiyada mucaaradku waxay ugu baaqeen baarlamaanka federaalka inay baaraan isla markaana tallaabada ku habboon ka qaadaan faragelinta ay ciidamada Itoobiya ay ku sameeyeen Soomaaliya oo ay ku jirto soo ridistii diyaaradii gargaarka siday 4 May sida ku qorneed qoraalka. war-saxaafadeedka ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ka dalbaday baaritaan ku saabsan joogitaanka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya oo xadgudub ku ah qaraarka 733 ee soo baxay sanadkii 1992 kaas oo Soomaaliya ku soo rogay cunaqabateyn dhinaca hubka ah. dowladda federaalka Soomaaliya, howlgalka AMISOM iyo dowladda Itoobiya ayaan wali ka jawaab celin qoraalka ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya. Hanad Jere, Goobjoog, Muqdisho.